kulanti wacan daawadayaal meel baa joogtaan. Waa habeen Jimco ah. Waa 17 bishii saddexaad 2023. Daawadayaal qodobada wararka kuwada ugu waaweyn caawa waxaa ka mid ah xiisadda ka halowsan Mareykanka iyo Russia, diyaaraddii laga soo riday maalinkii Talaadada ahayd. Macluumaadka la kala helayay ilaa maalintii Talaadada Arbacada ahayd ilaa iyo maanta ilaa iyo caawa wararku waxay soo tarayaan. Saraakiisha ugu sarreysa dalka Mareykanka ayaa ka hadlay wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidamada Yurub ilaa iyo Afrika, taliyaha ciidamada cirka Mareykanka, taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka iyo afhayeenka aqalka cad. Dhammaantood warbixintooda ayaa niyahayaa oo ay la dhegeysan doontaan. Waxaa kaloo niyahayaa madaxweynaha dowladda Russia oo la kulmay madaxweynaha dalka Syria, ra-iisul wasaarihii dalka Israa'iil oo booqasho ku jooga dalka Jarmalka oo banaanbax laga soo horjeedo halka lagu qabtay. Qodobo kaloo dheeriyay iyo macluumaadka diyaaradda iyo burburkeeda ay soo sideen daawadayaal. Diyaaraddii ku burburtay Talaadada ahayd maalinkii Talaadada ahayd badda madow ee gobolka Crimea ee dalka Russia ayaa muuqaalkee lasoo duubay lasoo sidaayay waxaana soo bandhigay wasaaradda difaaca gaashaandhigga ee Mareykanka maalinkii galabta ahayd. Waxaa la sheegayaa in diyaarad kale usoo dhawaatay oo la yiraahdo magaceeda Sookhay 27. mid kale ayaa ka dambeysay. Diyaaraddii ugu horreysay waxaa ku shubtay biyo, kaamiradiina markaas ugu dambeysay iyo kontaroolkoodii dabadeedna badda ayay ku dhacday. Laba diyaaradood ayaa cabaar celinayay diyaaraddan duuliye ma laha. Magaceeda waxaa la yiraahdaa MQ-9. qiimaheedu waa $32 milyan. Shacabka Mareykanka iyo madaxda aad bay caro uga muujiyeen diyaaradda markay maqleen in Russian-ka soo riday. Qaarkood waxay lahaayeen taliyihii ciidamada Mareykanka madaxweyne Biden maxaa ku dhacay, muu hadlo, muu arrinkan muu dagaal qaado. Saxaafadda Mareykanka aad u buunbuuniyeen sida ABC News, CNN-ka, Fox News. Daawadayaal marka senatarada Mareykanka oo gordhowta warbixin soo saaray waxay yiraahdeen xildhibaanada ayaa si weyn uga carooday dhibaateynta dhanka hawada ah ee diyaaradda Ruushku ay ku soo rideen. Diyaaradda droonka waxay ku tilmaamay xildhibaanada ama senatarada Mareykanka $32 milyan qiimadeedu gaarayay, balse waxay sheegeen in xiisadda la qaboojiyo. Daawadayaal diyaaradda muuqaalkeeda waa ujeedaan. Diyaaradda kale ayaa soo dhawaatay waxaana ku shubtay shidaal wax u eg say leeyihiin macluumaadka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka soo baxay. Hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga ee Russia waxay leeyihiin hawadeeda lagu soo xadgudbay. Dhulkan waa dhulkii uu ka socday howlgalka caalamiga ah dagaalka Ukraine. Mareykankuna wuxuu asna ku andacoonaya waa hawada caalamiga ahayd, badda madow weligeed aan marin jirnay iyo dhulalka kale oo caalamka. Marka waxaa kusoo niyahaynaa hadda oo soo sideynaya taliyaha wasiirka gaashaandhigga Mareykanka oo ka warramaya sida wax u dhaceen iyo halka diyaaradda kusoo dhacday. Russian-kana uga digay arrinkan inaysan mar dambe aysan ku dhaqmin inaysan sameyn. Wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka ninka la yiraahdo Leon Stone warbixintiisa ayaa niyahaynaa. Marka wasiirka waxaan jeclaystay iyo afhayeenka Pentagon-ka iyo taliyaha ciidamada Yurub iyo Afrika iyo taliyaha ciidanka cirka inaad warbixintiisa la daawataan. On Tuesday, Russian aircraft again engaged in dangerous and reckless and unprofessional behavior in the international airspace over the Black Sea. And 2 Russian jets dumped fuel on an unmanned U.S. MQ-9 aircraft conducting routine operations in international airspace. And 1 Russian jet struck our MQ-9 aircraft, resulting in a crash. And this hazardous episode is part of a pattern of aggressive, risky, and unsafe actions by Russian pilots in international airspace. Now, I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu. And as I've said repeatedly, it's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional. We know that the aggressive behavior was intentional. We also know it was very unprofessional and very unsafe. The actual contact of the fixed-wing Russian fighter with our UAV, the physical contact of those two, not sure yet. That remains to be seen.
Milley said the Pentagon had video evidence of the encounter and would consider declassifying parts of it. Coordinator for Strategic Communications John Kirby told CNN on Wednesday that the U.S. military has already moved to protect our equities and that they did not want anyone else getting their hands on the drone. Without getting to too much detail, what I can say is that we've taken steps to protect our equities with respect to that particular drone, that particular aircraft, and its United States property, Kirby said. We obviously don't want to see anybody getting their hands on it beyond us. Later on, Kirby took a distinctly less hopeful tone. It has not been recovered, and I'm not sure we're going to be able to recover it. I mean, where it fell into the Black Sea. Very, very deep water, Kirby told CNN. So we're still assessing whether there can be any kind of recovery effort mounted there. There may not be. The U.S. Navy does not have any ships operating in the Black Sea, a spokesperson for U.S. European Command told Fox News on Wednesday. Russia has denied that the aircraft touched one another and accused the U.S. of unnecessarily escalating the issue. We assume that the United States will refrain from further speculation in the media and stop flights near Russian borders, said Russian Ambassador Anatoly Antonov on Wednesday. He claimed that the drone crashed after undertaking sharp maneuvers, Reuters reports. The detail wasiirka gaashaanigu wuxuu sheegay in hawada caalamiga ay xaq u leeyihiin inay ku duulaan diyaaradoodana si gardarraa lagu soo riday dowladaha quwadda leh ayuu sheegay sida Ruushka iyo Mareykanka inay is-xushmeeyaan ayaa loo baahan yahay annaguna xaq waxaan u leenahay hawo walba caalami inaan ku duulno arrinkaana baaritaankeeda waa socdaa buu yiri wasiirka gaashaaniga xogeyaha ama afhayeenka wasaaradda gaashaaniga isna wuxuu sheegay in maaragtay diyaaradda badda ku burbudhay wax macluumaad ilaa haddaysan hayn maraakiibka dagaalka inaysan maaragtay dhulka aysan joogin badda madow sidaa daraaddeed wax macluumaad ma hayno yiri sidoo kale Sergey wasiirka gaashaaniga Ruushka wuxuu sheegay in arrinkan ay tahay arrin daandaasiya safiirka Mareykanka u fadhiya Ruushkana wuxuu sheegay in maaragtay arrintan ay uga gol leeyihiin in Ruushka maaragtay xaalad dagaal ay abuuraan maadaama dagaal uu ka socdo Ukraine daawadayaal madaxweynaha dowladda Syria maanta booqasho ku tagay dalka Russia magaalada Moscow Putin ay arkeen wuxuuna u ballan qaaday inuu garab istaagayo dagaalka socda dalka Ukraine uu garab ku siinayo Ruushka madaxweyne Putin arrinkaas uu ka aqbalay uu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha dowladda Russia madaxweyne Putin maanta shir ka qaybgalayay ka socday magaalada Moscow oo ka qaybgaleen ururada ku midoobay warshadaha dalkaas ayaa ka hadlay khudbad dheer wuxuuna taabtay daandaansiga reer galbeedka cunaqabateynta dalkiisa saareen inay dhaqaalaha burburiyaan inay dalka burburiyaan taasna wuxuu yidhi way isku dayi waayeen boqolaal sano ay wadeen maanta oo teknolojiyadda wax walba haysanaan annagoo maaragtay dhaqaale haysana shidaal haysana raashin haysana warshado haysana maaragtay nagama guuleysan karaan cadowgaas cadowga dibadda iyo cadowga gudaha hadda ay rabaan inay dalka ay ku abuureen argagixisada ah ay leeyihiin jamaadaha maaragtay dowladda kasoo horjeeda waxa soconaya maaha uu yiri marka wuxuu sheegay in dagaalka ay ku guuleysan doonaan dhinaca kale hogaamiyaha ururka ama kooxda la yiraahdo Wagner Group ee ka dagaalantay dalka Ukraine ayaa wuxuu sheegay maalinkii shalay ahayd in 2024 uu noqon doono madaxweynaha dalka Ukraine waa halkaas oo ka soo fakaday ayuu saxaafadda la wadaagay wuxuuna sheegay arrinkaas in ka wada hadleen dowladda Russia iyo madaxweynaha halkan ay la socotaan waa Calas